وصدح سنة رالي بان كان إنها سان كل ما يسن لكن شنت سنة ضم مركل السوجار هذا الشيطان هذا سوء استهتان شيطان دورانين waxaa magaalada Gaarisa si weyn looga hadalhayaa qaabkii Governor Nadiif Jaamac xilka looga qaadi lahaa iyadoo markii ugu horeysay xildhibaanada hoose ee Gaarisa tilaabo qaadeen iyagoo dawladda ku daleecaynaya wax qabad la'aan iyo musuqmaasuq darawalkii gaariga wada haduu hurdo waa in la toosiyaa marka haduu tooso waa okay haduu toosi waayana de waa in gaariga laga dejiyaa oo maarta darawal kale loo dhiibaa maxamed abow oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ololahani bilaabay waxayna xildhibaanada maanta kulan ugu soo gabagaboobaya gobolka xeebta iyagoo go'aamo ka soo gaaraya sidii ay dawladda ugu wareejin lahaayeen dawladda sare dalka hoose hadaanu nahay arrinta uu majority leader ku hadlay 100% waan ku raacsanahay waa arrin aan in badan soo jiideynay waqti badanna waan siinay dawladda sidoo asaga sheegayna siyaabo badan baan oo la talinay taladii waana laga qaadan waayay marka waxay ugu khasbaysaa in aan hadda maaragtay tilaabooyin sharci ah aan qaadno sifa dawladii waxa uu la jeedada ugu weyn waxa weeyaan in dawladii ay shaqeysaan rabnaa oo maaragtay dadweynaha loo khidmeeyo waxyaabaha khaldana la saxo sida kaliya lagu saxi karo hadeen ugu khasabto in aan maaragtay kaashano dawladda sare tilaabada waa tilaabo sharci ah waa mid aan maaragtay aad uga fikirnay waa mid aan isku raacsanahay hadda aan kula hadlaayana Mombasa ku shiraynaa waa arrinta ayada aan rabnaa inaan ku falanqeyno oo si fiican aan maaragtay u toosino arrinta ayada si kastaba ha ahaatee mas'uuliyiintani ayaa sheegay inay marnaba ogolaan doonin in xoolaha dadweynaha la iska lunsado taasina beddelkeeda ay ka doorbidayaan in xilka laga xayuubiyo Nadiif Jaamac